aad iyo aad tiraanyo xoog lanagu raabtay ilaa xalay waqtigii aan maqalnay inay dhacday dhacdada noocaas oo kale oo aan mid la filaayo aan ahayn maskaxda qofka bani aadamka oo caadiga ah ku soo dhici karin marna wixii shalay ka dhacay gobolka inay dhici karaan yani maskaxda caadiga ah ma qaadan karto waxaan leenahay dadkii ku dhamaaday madaxdii magaaladan ilaahay ha u naxariisto intii dhaawacantayna boobtooda allah u dhayo ilaahayna si degdega caafimaad ha siiyo waa murugo weyn oo aan laga mataqaanaa aan la iloobi karin kullu nafsin daa'iqatu lmowt wanabluukum bisharri walkhayr fitna wa ilayna turjacuun kulligan waan dhimanaynaa ilaahay wuxuu leeyahay waxaana idinku imtixaaminaa khayr iyo shar waxay ka mid tahay imtixaamkay ka mid tahay in waxaan oo kale ay dhacaan dad qiimahan oo kale leh ay meeshaan ku waxyeeloobaan ku dhintaan waxay ka mid tahay fitnada ilaahay waxaan leeyahay ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay fitna naga saaro taasi tacsiyada halkaasaan kaga baxaya gudoomiyaha ugu weynaa magaaladan muqdisho waa la iga ahaada mudane cabdiraxmaan yariiso waxaan leeyahay waa gudoomiyihii u sarreeyey meeshaan si khaasaan ugu tacsiyeynaynaa si khaasaan ugu tacsiyeynaya ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo isaga iyo ragga kale ee la dhaawacmeen la qaadi doono insha allahu tacaala taas haddaan ka gudbo waxaa jira murugo weyn oo sideedaba soomaali guud ahaan haysato ha noqoto gobolka aan ka nimid jubbaland ama ha ahaato soomaali guud ahaan marka waxaa jira allahuma laa sahla ilaa maa jacaltuhu sahla wa anta tajcalu lxusna idaa shi'ta sahla wuxuusan ilaahay sahlin ma noqdaan shay sahle xusniga ama murugta weyn ee na haysatane maanta soomaaliya naga haysata meel walbane waa mid aan ilaahay ka baryayna inuu ilaahay naga qaado waad maqlaysaan jubbaland waa gobol state ka mid ee dowladda federaalka kana mid ee stateyada ugu waaweyn soomaaliya dhul aad iyo aad u ballaaran u qiimo badan qurux badan soomaaliya idil xataa iska daaya adduunyada barkeed ay degi karto waana arkaysaan wax aan macno lahayn yaa laisku haystaa madaxweynaha hadda ay waqtiga kasii dhammaaday axmed maxamed islaam 7 sano uu soo hayay wuxuu ilaahay qadaray waa soo dhaceen wuxuu u samayn karay waa soo sameeyey khayr iyo sharba waxay ahaataba waqtigii baa la gaaray marka isbedelkii inuu isbedel imaado inuu ogolaado isagoo raalli ah aad iyo aad bay u wanaagsan tahay base muuqato hadda xaaladda sida ay ku socoto sida ay saaxiibaday ka dhawaajiyaan xaaladda sidaasi uma socoto laakiin waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay dariiqsan kusoo toosiyey isna dalkaanne usan ka tegin sumcad xun dalkan wuxuu u baahan yahay hiilo in loo hiiliyo wadaninimada soomaalinimada wax weyn oo aad iyo aad u qaybo badan wey soomaalida waxaa lagu caayaa meel walbaba adduunkana arkaysa meel kasta inay yihiin dad iyaga dhexdooda isbaabi'iyo istirtiro isnacab qabyaalad uun adduunyo ku dhex jiro danahooda caadiga baan usoo jeedin taasina allah naga saaro intaas haddaan ka gudbo qoraalkii shalay soo baxay ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha haddaan nahay musharaxiinta jubbaland aad baan u taageeraynaa waxay ka hadleen ama ay ka hadashay xaqaaqiqta meesha wixii ka dhacay waa waxa annaga murugada na haysta ayay ka mid tahay in dadkii mas-uuliyiinta isimada ama salaadiinta reer jubbaland ay noqdaan kuwa xaqa u leh
inay soo saaraan xildhibaanadii ay rabeen inay u soo saaraan meeshaas. waa nasiib daro kuwa aan ayagii ahayn haddii la qabtay oo laga dhigay isimo la yiri idinka mataqaana wax soo saara xildhibaanadii keena. waxay ka mid tahay carqaladda iyo waxyaabaha aan dalkan maslaxad u ahayn inay kusii socoto. annagana taas waan kasoo horjeednaa, aad iyo aadaan u diidan haddaan musharaxiinta nahay. musharaxiinta kale ee saaxiibadeen ee ku nool magaalada Kismaayo way ka hadleen, waa ku waafaqsannahay, isku mabda baan ka nahay, isku mawqif baan ka nahay, meel baan ka wada taagannahay arrimahaas dhammaanteed. marka waxa aan kaloo aan ku daraya oo keliya isimada laftooda wax kasta oo meeshaas ka dhaco iyo shacabka reer Jubbaland, war dalka idinkaa leh, idinka ayaa salaadiin u ah. wixii qalad ah laydinku sameeyana iska diida, kana hortaga. ha yeelina in idinka oo taagan oo nool in xuquuqdiinii iyo sharaftiinii iyo karaamadiinii meel inta laga dhaco waxaydan mudnayn ay meesha laydinku sameeyo. waxaan leeyahay taas ka dhiidhiya. kan kale nabadgelyada magaalada iyo nabadgelyada Jubbaland guud ahaan, Jubbaland ciidan bay leedahay. waxaan rajaynayaa ciidamada Jubbaland inaan marnaba lagu abuurin wax qabyaalad la yiraahdo. wardireeska iyo astaanta ciidanka militariga iyo booliiska ninka qabo waa nin qaran weyn, nin qabiil maaha. ninka hadduu rabo inuu qabiil noqdo ciidan ma noqon karo, militarina ma noqon karo, booliisna ma noqon karo, mid kalena asluubna ma noqon karo. waa inuu iska dhiga dharka iyo astaanta uu wato oo uu meel iska dhigo markaas qabyaaladiisa iyo qabiil uu soo jeestaa. laakiin inta uu dharka qabo, inta uu dareeska qabo, dowladda ay leedahay waa nin qaran. waxaan leenahay iyaga war nabadgelyada meesha ilaaliya. madaxweynaha waqtigiisii waa dhammaaday. waxaan u malaynayaa bisha 4 ay tahay maalinta u dambayso. mas-uuliyadda marka madaxweynihii hadduu dhaca oo ka dhaco waqtigiisa dhammaado, waxaa qaadaya waa ciidamada qalabka sida ayaa laga rabaa inay nabadgelyada sugaan, si Soomaalinimo ay ku jirto ay u sugaan ummadooda iyo dalkooda iyo dadkoodana